standard access list in saaraytaan hadda waxay shidan Geneseriga software-ka wuxuu yaala qofkii u baahan video hoostiisa oo kasoo dejisan karaa sida router loo geeyo isla channelkeeda soo gashid qaab loo geeyo oo la sharaxayo ayaa ku jiro kaas raaci kartaa isla router hadda horteeda yaalo iyo jarbi casharaha jiray aan hore soo sameynay kiiban soo qaatay aan rabaa inaan ka dhex sameeyo iyo jarbiga saytana kulli waxaan dhigi doonaa hadana channel hoostiisaan dhigi doonaa videogan aan fiirsan doono hoostiisaan dhigi doonaa qofkii u baahan halkaas soo raaco si haduu rabo access list markii uu rabo inuu sameeyo oo ugu dhex sameeyo halkan iyo jarbiga si loo sameynayo hoos ay taala marka iyo jarbigan hoos soo koran u qaadan doonaa halkan waxaan ka dhigi doonaa ama meeshaas ka ahaado halkan everno halkan waxaan ka dhigi doonaa access list waa soo gaabiyay wuxuu kala baxaa marka labo oo kala baxaa waa standard access list iyo extended access list. Okay, standard access list wuxuu standard waa numberkiisu waa 1 ilaa 99 waa 1 ilaa 99 waa standard access list. sidee loo isticmaalaa waaye waxaa jirta marka waxa la dhaho close to destination iyo isticmaalaa kan close to destination ma apply to the destination apply here closest destination closest destination waa soo gaabin doonaa tan kalena close to the destination hadda way taasoo soo gaabin destination wada qori doono apply xitaa inaan soo gaabeegaya sababtoo ah okay kan waa la arkayaa hadeer standard access list wuxuu qaataa waa 1 ilaa iyo 100 99 waa 100 ma aha weliba 100 hadaa gaartid external u soo wareegtay externalna waa hadda ma sameyn doono laakiin video ku xigo inaan soo sameeyo laga yaabaa access list asna dah video ku xigo aan sameeyo isku day inaan sameeyo extended gaasaytasna okay tano access 10 extended access list la soo gaabiyay asna marka haddaan saan dhaho waa 100 ilaa 199 waa 200 asna marka external waa sii dheeraa waa sii badan doonaa laakiin 100 ilaa 200 waa la dhahaa laakiin markii oo version 4 iyo waxaas loo sii gudbo waa sii badan doonaa external sila sii badanaay standardka ma wax sii badanaay marka waa labo kan muxuu kaas wuxuu yiri apply close to destination يعني meesha destinationka oo yani loo socday waa in loo dhabeeyo meesha lagu apply gareynayo ama lagu sameynayo laakiin kani intuu noqon doonaa way markaasna wuxuu noqonayaa asna apply yet closest to the source soo gaabinayno sidiisa u qori karnaa waa sidaasna okay edit text halkan kana edit text dadna okay hadda inaan keenno halkan okay haddaba maadaama uu yahay kan close waxaan rabnaa halkan inaan keeno kan markaan sameyn doono insha Allah hadda waxaan sameynaynaa inaan kan sameyno geeskaas waxa uu dhigtay waxaan rabaa close to destination maadaama la yiri halkan waxaan isku dayaa inaan computer ku soo darno horta sidaan de hal PC kale ku soo dar halkan saan leexi
wires kan ka bax ani computer aan kusoo diri karaa halka maadaama 24 aan haysto /24 ay tahay 253 computer halkan dhigi karaa isticmaali karaa ya sababtaan u haysto 253 computer maxay tahay waaye in PC-gan ku xirayaa raaliyaado in sababtaan u isticmaalo 253 computer waxay tahay halkan 0 waxa ku hoos joogan 14 waa subnet buuxsamay halkan laakiin 0daas waxa ku hoos joogan /24 maadaama ay tahay 255 ku jirto 255 waxa laga jirayaa default gateway iyo waxa laga jirayaa network maskiga waxa ka soo baxaya markaas 253 computer oo hostan isticmaali karaa marka hadda waa laba host kaliya ka isticmaalaya inta kale dad u baahan tahay soo dari kartaa kanna waxaan rabnaa inaan u isticmaalno hal host kamid ah inuu halkan gaari karin laakiin hostiga labaad oo gaari karo ama 252 host soo hartay waa inay halkan gaari karaan taasaan ka rabnaa inshallah start the wadashid routerdaniti ma taaban doono sababtoo ah EIGRP horaan ugu soo sameeyay qofkii u baahan waa inuu hostaga host ka soo fiirsadaa waa jidka ugu sahlan inuu ka baran karo EIGRP-ga EIGRP ay ku wada shaqeeyaan kulligooda okay hadda waxaan rabnaa inaan sameyno PC-yada IP address ku jiro ma maleynayo iyo router 3 okay waxaan PC 3 intaan tagaan router 3 tag horta iyo router 4 inay sarkayaan ay muhiimsan and then waxaan aadi doonaa markaas ku loo baahan yahay router 4 internet was also show IP interface brief dano IP addresses waa leeyihiin okay router 4 u baahanahay waay router 3 u baahanahay okay router 3 waxa ku jira soo jirto inuu wada gaarayo ping n pin 13.13.13.n1 hadi u shaqeynaya maadaama halkan bingareenayo router 4kaas waxa uu looga mabaahna deer standard sameeyana access list router 3gana wixiisna waa leeyahay show IP interface brief router kan oo baahan doonaa insha Allah okay dhinacaas iyo marsiikan PC kan iyo kan horta PC-gaas maxaa ku jiray PC1 ka imaaw PC3 waa sana PC2 na kan okay waxaan haysanaa PC2 PC1 PC3 okay PC2 ga iyo PC interkan wana halkan ka saaraa si isku kay xigsadaan PC3 oo dhinacan iyo kan ka saaraa dhinaciisa PC1 PC2 PC1 waa kan PC2 PC3 marka tagaan kan okay marka PC3ga PC2ga imaaw waxaa la show IP normal hadda kor waa sheegay show IP kan waxa lagu qoray waa virtual PC kan kale normal PC-geena ama computer-keena caadiga ah waxa lagu qorayaa IP config Windows 7 haduu yahay haduu Linux yahay ama Ubuntu ama waxyaabaha kale software kale isticmaalaya ama Ubuntu waxa haduu yahay waxa isticmaalaysaa IAP config ama IW config okay show IP aan ku qornay waxba kuma jiraan marka waa inaan siinaa IP address kan siinayna muxuu yahay /24 waa 14 Soomaan PC2 okay IP 14.14.14.2/24 space 14.14.14.1 taas intuu soo qaadanayo PC3 gana imaaw okay waxaan ku qoraynaa isna show IP waxaa ku jiro waxba kuma jiraan isna IP 14.14.14.3/24 kuwan waxay isku yihiin same subnet same default gateway wada haystaan labadan PC2 iyo PC3 okay pin
14.14.14.2 neighborkiis waa inuu bingareyn karaa yacni kan u dhawaay oo hostes leh hal network iskula jiraan hal default gateway isla haystaan waa inay isbingareyn karaan okay waxaan rabnaa marka pc1 ka imaal oo naga dheer 13 show ib maxaa ku jira isna waa ever ib 13.13.13.2/24 space 13.13.13.1 waa inuu isna caadi u shaqeeyaa okay waa inuu bingareeyaa marka pin 14.14.14.2 wuxuu bingareynayaa hadeer pc2 bingareynaya halkaniti waxaan joognaa waa pc1 waxa kasoo bingareynay waxaana bingareynayaa pc2 ga oo bingareynaya okay pc3 gan imaaw waxaan kusoo bingareynaynaa pc1 waxay ahay 14.2 okay pin 14.14.15.2 isna caadi u bingareynaya waa hadda kanaan rabno inaan block gareyno oo access list aan kusoo xirnaa rabno okay waxaan rabnaa trace inta u marayaa inaan dhahno 14.14.14.2 pc gan horta la dhaho trace ma shaqeynayo okay dib ma jiro trace 14.14.14.1 trace okay caadi u bingareeyo soo mahayna okay waxaan tagaynaa marka waxaan tagaynaa router 3 ga router 3 aan tagnay router 3 markaan tagno marka maadaama isbingareynayaan wuxuu dhan iswada bingareynayaan waxaan rabnaa router 3 ga inaan ku apply gareyno access list standardkaasiti waxaan rabnaa inaan ku apply gareyno markaan si aysan isku bingareynin halkaas hoose loo block gareeyo waa intaas ay muhiimada oo laga rabo configure terminal list 1 aan leenahay anaga calaamad su'aal c deny aan leenahay maadaama la block gareynayo hal host waa marka ip address aan block gareynaynaa wuxuu ahay router 3 gan joognaa wuxuu ahay 14.14.3 I think 14.14.3 14.14.3 14.14.14.3 okay marka ip address saas u siisid waxaan sababta 3 au siinay waxay tahay waxaan rabnaa hal pc kaliya inuu halkaan gaari karo laakiin waxaan rabnaa pc2 inuu halkaas gaari karo oo wax bingareyn karo laakiin hal pc kaliya hal computer kaliya aan rabnaa inuusan jidkaas mari karin okay wuxuu qaadanayaa kan wildcard uu qaadanayaa 0.0.0.0 haddii aad rabto inaad block gareysid hostigaan oo dhan 14 oo dhan inaad 0.253 computer kulligood haddaad rabto inaad block gareysid meesha haddaan halkan pc aan ka block gareynayo oo kanaan ka tagayo kan rabo inay is arkaan pc1 kan iyo pc2 inay is arkaan aan rabaa pc3 gana aan block gareeyo aan rabaa deer ama pc2 ga haddaad aan block gareeyo pc3 iyo pc1 ka is arki karaan waa muhiimadaas waay hadda waxaan block gareynaa pc3 waxaan rabnaa pc1 iyo pc2 inay is arkaan laakiin pc3 aysan arkin oo san bingareyn karin qaybtan oo gaareynin kan oo halkan gaareynin laakiin uu gaarayo qaybta hoostigan haddii aad rabtid inaad block gareysid marka whole block oo 2555 ka ah oo halkan ku jiro intaas oo host meesha aan 3 ka siinayo waa inaad ka siisaa 0 ana meeshan 0 aan ka siinayo waa inaad ka siisaa 255 halkan waa inaad ka siisaa 255 halkan waa inaad ka siisaa 0 laakiin hadda anaga ma rabno kulligood inaan block gareyno hal host kaliya aan rabnaa inaan block gareyno 3
halkan waxaan ka siinayaa 0 sababtoo kuwa kale oo meesha kula jiro inay ii shaqeeyaan rabnaa. Okay, markaan saas dhaho hadana waxaan leeyahay access list 1 meesha deny ahead waxaan leeyahay markaan permit waxaan leeyahay ani u isticmaalaya marka ani waxa uu isticmaalaya hal xabaa laga soo tagay inta kale waa la isticmaali karaa waay markaas ay tahay. Okay, taas waa ka baxnay access hadana wixii aad sameysay waxaan ku sameynay configuration laakiin godka laguma apply gareyn godka waana ku apply gareyn hadana interface gigabyte exit aan dhahay config aan ka baxayno configure terminalka aan ka baxay interface ku ayna tagnaa gigabyte 1/0. Okay, kadibna waxaan leedahay marka IP access list group way 1 and then hada saan dhaho out way waxaan rabnaa inaan ka block gareyno marka out wax ka imaanaya ee ma aha in wax ka baxaya dadkan out way waxaan block gareynayno marka enda leedahay wr oo save gareey hadda marka waxay keentaa bc2 bc1 ki ma horta hadaati wuxuu bingareynayay in .2 online hadda bingareynayay .2 ga time out waa aqbalay in laba mar wuxuu bingareynayay waxa way halkan laga baaraya isbaara halkan taalo isbaarada halkan taalo oo laga baaraya hadda caadi u qaadanaya kan laakiin .3 ga hadaati isbingareynayaan wir hayele .3 kaliya markaan waxaan soo block gareynaa waa .3 ma shaqeynayo time out waa ku daay kaas ma shaqeynayo haddaan tago bc13.13.2 maxaa lalahay sax waay waxaa la yiri ICMP waa dirtay waraaqda oo diray ICMP waa diray communication kii xiriirka oo wada hadalka u socday administrative prohibited allahay waa la soo diiday yani inuu gudbo halkan inta loo diiday laakiin wuxuu bin gareynaa marka 13.2 ga wuxuu leeyahay mogtahay default gateway-giisa kana ahaa 13.1 waa haddaan kaas gudayna kuwar maxaa dhacay waa caadi u bin gareynaa kaas sababta kaas ma loo diidin sababta default gateway waa bin gareynaa laakiin hostiga ma gaarayo waxaa loo diiday inuu hostiga inta u gudbo loo diiday laakiin waxaa loo ogolaaday inuu default gateway aado sababtoo halkan ma mari karaa la godka halkan laga block garay meeshan gigabyte 1 ka laga block gareystay inkaan meesha laga diiday isbaarada halkan ay taalaa ee ma aha dhinacaniti. Okay, gigabyte wuxuu qaadanayaa gigabyte maadaama laga block garay wuxuu qaadanayaa 13.1 oo qaadanaya waa standard. Okay, maxaa dhacayo haddaan dhaho wire shagi inta miiga tusinaya halkan ilaan inta wax laga block garay inta maaniya sugarta inta ma wire shagi ma calaamadii wire shagi ma okay waxaana bin gareyn doonaa kan iyo kan horta halkan kan halkan kan okay waxaan bin gareynaynaa markaan 13 pin aya .1 lama rabo marka .2 oo bc ga oo la diidanaya wuxuu ku tusinayaa in waxaa la isticmaalaya jardiga la isticmaalaya 14.3 ga bc ga ahay way in oo bin gareynaya wixii ku tusinaya SMB ga wixii ku tusinaya destination meesha uu socdo unreachable uu ku leeyahay waa la soo diiday yani backetka markay hal u dirto oo diro waa la soo diidaya waxa la soo dhaxmaraya jarb ga waxa si tir soo dhaxmara ku sharaxay hadeer. Okay, laakiin haddaan halkan tago hadda soo dhaqaaqayo haddaan halkan tagno wire shagan hadda kan soo dhaqaaqay waa aragteen sugiya stop pause 7 de hadda halkan marka wire shagan camera kaga siiyo ma ku tusinaa way uu soo gudbinay sababtoo ma gaaray bank halkan ma soo gaaray bank halkan ma gaaray maadaama uusan gaarin hadda ma tusin doono. Okay,
hadda waa ibr soomayn hadda bin samee marka wax ma leh binkin waa sameynayaa wixii haddaatana la tusay waa lasoo diidan lahay aba waxaa la halkan yaalo iyo jarbiigi la yaalo binki ma lahan sababtoo ah ma u gudbinbo halkan ma usoo gudbooyo wuxuu wax bingareynayo wixii bingareey halkan oo ka qabanaa intuu ka qaban karaa intuu ka qaban karaa sababtoo ah anta laga blogaray waxaa laga blogaray meeshan gigabyte 1 ka laga soo blogaray anta ma gudbay that's why was need to saying hello bucket iyo jarbiigi isku diraalo oo ku tusanaa bas wax kale kuma tusan karo binkiisa away ma ku tusanayo laakiin haddii halkan kabir ka dhahdo cadow ku tusanaa hadda halkan kabir aan ka dhahno waa tusanaa anta hadda ka dhahno waa tusanaa waxaan dhan waa tusanaa laakiin halkan kuma tusanayo sababtoo ah anta laga blogaray dhunta laga hayaa waa dhunta laga qabtay halkan ma gudbi karo bc3 ga bc2 ga laakiin caadi u gudbi karaa bc2 haddaan tagno hadda bc2 ga bc2 gay kan halkan keen kan anta keen mar kale waxaa dhahdaa pin hal bin gareyna waxay ahayn 13 saamaleynayo 13 abaya ma jirto 13.2 okay 13.2 pin 13.13.13.2 هذه وشقينا كم halkan no ana waxa joogaa bc1 aan joogaa bc1 lama rabo bc2 la rabaa bc2 la rabaa ina wax ka bangareeyo 13 13.13.13.2 hadda marka wax dhacay ark waa kana eco bin roog soo baxay Soomaaliya waxa bangareenay waa eco bin oo keenay marka la soo diido waa la soo diido ku raaya marka la ogolaado ku leeyahay waa kasaa caadi u socdaa 14 oo soo bingareeyay 13.2 bingareeyay ICMP gi sidii uu shaqeynaya hadda laakiin bc3 marka la tago ma iseenayo waxa sayti waxaan binkan ito iseenayo oo halkan ito taalo ma iseenayo bin reply waxaan ito iseenayo request iseenayo ma iseenayo hadan bc3 ga tago bc3 ga tag marka la fiiri inuu router si way ka marka bc3 ga tag marka la fiiri ma ku iseenayo ship waa shaqaaga ma leh mana gaarin halkan waxa uu bor habit waa la diiday sababtoo anta ka blogareysan yahay standard access list saasa loo sameeyaa configuration ku aragteen halkan wax lama gaarsiin karo waana close to destination sababtoo loo dhahay close to destination meesha la rabo in laga blogareeyo waa in dhinaca laga soo galaa kan laakiin saas ma ahan waa source asan dhinacna laga gali doonaa kan waliba laba waa laga sameyn karaa source waa laga sameyn karaa destination waa laga sameyn karaa antana waa laga sameyn karaa dhinacna waa laga sameyn karaa isla antana waa laga sameyn karaa antana waa laga sameyn karaa dhinac kasta laga sameyn karaa kan access list extended access list videodan baa ka sameyn doonaa hadda kan waxaan sameynaa waa standard access list kaliya casharkan taa nooga yahay ciid mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh